رحم الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد وعن مركو رسول دويليا محمد حاج علي قدوبيها مدحوينك وحجينك هوغاك جودة حسبك حرز حاج علي وني من دولك كعصب هين وهوري أوصل شقيني محمد قدوبيها حسبك محمد جردي عبد القادر جردي وحكروا هلك مهدي بوبايو قربها وذا إسماعيل بوبايو قربها وذا شوقي جبرو يسقوا ما يقرن ماي لكن هذا ما هو قرنيا دهنا ما وذا شوقي جري إكسو سود دارو ميرا بدن كسو عقاقي سومالي واحد سومالي ويني واحد سعودي كسو عقاقي والسود هو ما نسقنا هاي دهنا ما اسكو هاجري كسو دو ما له واحد يا هوجانك حسبك دبان با مدح حسبك وان سلام يا gebigood waa wada salaamaya waxa ku salaamaya salaanta islaamka soo dhawaadaan ilaahay degmada dila aad iyo aad ugu soo dhawaada labeenta xisbiga labeenta waxa weeyaan xisbigan waa labeentii wadanka ku soo dhawaada waa magaaladii dila waa halkii afaafkii laga soo galayay weeyaan boorama ku soo dhawaada waxa weey dadku waagii hore ku xusbay ciyaari jireen kolkay ku xusbay ciyaari jireen marka la badiyana ilaga waa la wada badiyaa loo jiray war ciyaari waa galin dambe ama wadina ciyaari hadii la yiraahdo waa galin dambe waana guuleysayna hadii alla yiraahdo dadkuna isbedel bay u baahan yihiin isbedel baa loo baahan yahay Obama markuu tartamayay waa nin madow baa lahaa wuxuu waa nin wiina janji buu moogta waxa weey hadda waxaan u baahnaa isbedel wadanku isbedel buu baahan yahay isbedel buu baahan yahay waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa xisbiga wadani وأدي عاد بان وهبلية سود وهذا اللي dadkuna isbedel baan u baahnay isbedel muglaan u baahnay isbedel mug baan u baahnay insha Allah kama had celinayna soo dhaweynta qiimaha badan ee aad ka sharafta badan sida noo soo dhaweyseen noo qiimeyseen runtii aad iyo aad baa loogu yaqaanay dila soo dhaweyn goobannimo iyo sharaf leh mar walba ma markii ugu horeysay marar badan baan imi dila oo sidan iyo si ka badan baan loo soo dhaweeyay runtii dareenka fiican iyo farxadda iyo wajiga furan ee qiimaha badanina lagu soo dhaweeyay waa ku mahadsantihiin waxaan iman jiray reer dilaad waxaan leeyahay waxaan iman jiray anigoo madaxweyne Silaanya la socda ama shaqo u socda oo halkan laamiga ay xaajiyadii imka amaanta ku marinaysay oo aan runtii ku amaanaya madaxweynaha qaranka iyo intii wax ka qabatayba ayaan iman jiray waxaan maantana idin wada madaxweyne soo socda madaxweyne ku xigeen soo socda insha Allah taala hadaan madaxweyne aan la socdo idin iman jiray maantana madaxweyne ku xigeen soo socda oo reer dilaada ayaan idin wadnaa waan u hambalyeynaa insha Allah taala guul baan u rajaynaynaa insha Allah taala idinkana waxaan idin leenahay sida u dadaali jirteen isugu duubnaan jirteen maalinteedun baa la idin sugayaa maantana soo dhaweyntii shaashada waa ku mahadsantihiin isku duubnaada idinka oo dhammaan ilaalinaya qarannimada iyo isku duubnida ilaalinaya insha Allah taala isku duubnaada waxa weeye inaga sidii uu gudoomiyuu sheegay qabyaalad ku ololeyn mayno waxaynu ku ololeynaa qarannimo iyo wadani xisbiga wadani wuxuu ku ololeynayaa qarannimo qabyaalad ku ololeyn maayo isku duubnaada insha Allah taala wanaaga wax ku doorta qofkii wanaagsan ee u qalma doorta haddaanaan wanaagsanayn waad diidi kartaa haddaanu wanaagsanayna waadna dooran kartaa wanaaga wax ku doorta qabyaalad la'aanta iyo qarannimada wax ku doorta aad iyo aad baa u mahadsantihiin dilay ma nabadba waxaan maanta ku faraxsanahay inaanu soo galbinay kaambeynkii maaha waa galbis waxaanu galbinaynaa murashaxa madaxweyne ku xigeenka Dr. Maxamed Cali Cabdi waa galbis waxaynu ballana musharaxiina uu soo raacay madaxweynuhu hawl buu ku maqan yahay isaguna cudurdaarkaas waa ka gudoomaysaan waxaynu ballana kaambeynku inoo dambeeyaa من نلقادتين مشرعة من نلقادتين أننا وايد لقادني ديجا ماذا يدي وكشقيننا دذلك وين يدك على ذيك الربا وحلا الربا إن الله كلاهرين عدود هي عقلي إن الله كلاهرين يعود بقى
dili ha noolaato waddani ha noolaado musharaxa madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado waa inoo doorashada iyo kaambeynka waana salaamantiina alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahadle dhammaantiin dadweynaha sharafta leh ee karaamada leh ee dila ee halkan nagu soo dhoweeyey waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya afka wafdiga dhammaantood hogaamiyaha xisbiga gudoomiyaha xisbiga siyaasiga weyn ismaaciil mahdi buuba odayaha guud ee xisbiga waxaan idin leenahay waan idinka mahadnaqannaa sida fiican ee karaamada leh ee aad noo soo dhowayseen reer dilaad waa lagu yaqaanay soo dhowayntaasi waxaanan ku dadaalanaa xisbiga waddani wuxuu taagan yahay inuu waddanka isbeddel ka dhaliyo haddii aan la yidhaaho magaalada dila waxaa ka muuqata calaamadihii burburkii dawladdii hore dagaalkii sokeeye ayaa weli ka muuqda waa meelaha lagu garan karo waddanka inuu ka dhacay dagaal sokeeye oo burburiyey waxaa waddani ku dadaali doonaa calaamadahaasi oo 25 sannadood in ka badan soo jiray inuu tirtiro oo horumarka waddanka ee la hiigsanayo inay magaalada dila noqoto meelaha ugu horeeya ee waddani uu ka hirgeliyo dhaqaalaha siyaasadda nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadka dila waxay ka mid tahay meelaha marka abaaruhu dhacaan ama mar kastaba ugu tala nolosha biyo la'aantu ay ka dhacdo wax waddani ku dadaali doona haddii aan la yidhaaho inuu biyaha iyo magaalada dila inuu wax weyn ka bedelo waayo nolosha bini'aadmigu waa biyaha oo lagama maarmo waxaan ku dadaalanaa haddii aan la yidhaho waddani qabyaalad oo waddanka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ka mida maanta oo kala farfaruuray oo kala qoqobay inuu waddani qabyaalad inta lagu sheegi doonaa qof waliba dee reer buu ka dhasho taa la diidi maayo laakiin intii aayadda qur-aanku tidhi jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila intaa in ka badan waddani lagu arki maayo qabyaalad waddani wuxuu ku dadaali doonaa haddii la yidhaaho cadaaladda iyo sinaanta halkan waxaan soo maray sanadkan horaantiisii anigoo leh waxaan u tartami doonaa jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga waddani alxamdulilah maanta waxaan dila joogaa anigoo ah musharaxa u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka xisbiga waddani waxaan rajaynayaa dil inay muujiso xooggeeda iyo awooddeeda sida ay u soo saari lahayd xisbiga waddani taasina waxaan rajaynaynaa inaan qof dila ah inaan loo sheegi doonin haddii aan la yidhaaho markaa wakhtiga oo kulul cadeedda oo kulul iyo safarkoona sugaya waxaan aad idinku mahadnaqayaa mar kale sida fiican eed wakhtigiinnii ee karaamada leh eed noo soo dhowayseen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa inay dili noqoto hoyga galbeedka ee xisbiga waddani aad iyo aad